رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام أحاديث رمضان waa barnaamij aynu ku soo qaadan doonno qaar ka mid a axaadiidta nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama ee uu uga hadlay soonka ama ramadaanta can caaishata radia allahu canha qaalat qultu yaa rasuula allah ara'ayta in calimtu ayu laylatin ilqadri ma aquulu fiiha qaal قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه الألباني. عائشة الله رالها كأهاده أيا وحاي تري وحن كيري رسولك الله صلى الله عليه وسلم كورن هديان أغادو هبينك أي ليلة القدر تهي maxaan idhaahdaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam dheh allow cafi badanaa tahay waadna jeceshahay cafinta ee icafi. waxaa wariyey imaamu axmed ibnu maajah attirmidi oo waa saxiix yidhi waxaa kale oo waa saxiix yidhi ashaykh alalbani. culummadu waxay yidhaahdeen waxaa laylatulqadri loogu magacaabay malaa'igta ayaa loo qorayaa waxa qadar alle ah risqi ah ajala ah ee sannadkaas sida aayadaha qaar laga fahmayo amaba waa weynida qadarkeeda iyo sharafteeda sababta loogu bixiyey laylatulqadri. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام